abwan waxaan ku soo jirnay arinta badda iyo Itoobiyaanka qadiyadan Zeylac iyo badda wax gabay ah oo aad ka tirisay ma jira walaal waxa jira gabay la yiraahdo dhabanahays la yaab weey waxa la yaaban yahay waxa maanta maaragtay Soomaali dhulkeedii ka dhacay si guud iyo si gaar ah arinta hadda aad carabka ku dhufatay marka gabayga dhabanahays la yiraahdo ayaa jira muxuu si gaar ah diiradda u saaraya nin dhabanka iyo gacanta isa saaray nin yaaban horta weey taas waa ko nin aan fariis talabaadna waxa weeyaan dadka arintaas ay khuseysay Soomaalida si guud si gaar ah dhalinyarada oo ah dadka maanta mustaqbalkoodii uu taagan yahay waxaas iyaga ay khatarta ugu weyn ku yihiin xoogii dalka iyo ummadda iyo dalkana maaragtay inay waxa iska diidaan intaas walaal ku saabsan marka dhabanahays wuxuu yiri sharaacada ninkii dhinac maray iyo dhoohan kaligeeda dhugmanimaan lahayn iyo ninkii dhuuntay sharaacada ninkii dhinac maray iyo dhoohan kaligeeda dhugmanimaan lahayn iyo ninkii dhuuntay haw cabanay dhal shisheeye iyo kii habraday lama dhageystaana dharaariye wixii nool tashigu iga dhamaan waayay ma dhakoolo ruuxii niyada hawle dhibaysaaye dhafarka iyo soo jeedku waa dhaaxa abidkay hadba waxaan la sii dhololayaa dhaawacaan ahaye dhafooradu waxay la goteen waan dhadhabayaa waa dhabanahays xaajadan dhuux ku leeyahay niman baa dhudhuubada ka riday sidigtii dhaameele dhaxalkeeni bay tuuganimo dhaqaya siisteen iyadoo wixii hore u dhacay dhiidhi hari waayay saakana dhibaatadu hadday tarihii soo dhaaftay xeebaha dhammaantood haddii xabashi loo dhiibay hadba koran la dhaansaday haddii dhidar la muuneeyey hadba koran la dhaansaday haddii dhidar la muuneeyey alla ilaha dhigaaliyo war way kala dhaqaaqeen macnaa hadal xilligeeda waa dhalinyarada Soomaalida wuxuu yiri hadba koran la dhaansaday haddii dhidar la muuneeyey alla ilaha dhigaaliyo war way kala dhaqaaqeen dhalinyarada Soomaalida ay hay dhaliiline dibadaha kuwii dhoofay oo waa fariin dhabahe mar haddii han lagu dhaato iyo teeni dhicisowday dhacdiidka iyo jiifka waa soo dhadhamiseen warniyo haddii maaragtay iska fadhi iyo iska waxaas hadday macna leeyihiin waa la soo dhadhamiyay dhacdiidka iyo jiifka waa soo dhadhamiseen ficilkiini baan dhowrayaa dhumucda weynaaye waxba yaan caleentii la dhilana ku dhacanteene waxba yaan dharaariya habeen muran ku dheeraane waxba yaan adduunyo la dhaqan dheefta xoolaha waxba yaan dhaqaaliye la helin dhagiyo maamuuse waxba yaan aroosii la dhigan dhaadashada guure waxba yaan dhabeel iyo la qabin dhudi filkeedii dhadig iyo labood hawsha way naga dhaxaysay hadal dhiga dhufaysyada camirada iyo dhalanteedka dhayal diida hawsha u dhaqsada socodka dheereeya dalka dhiciya dheelada u kaca dhamacu taagnaada dhagaraha gumaysigu yaqaan dhabu daraaseeya dhalalaabada iyo sheekadii dhinac ka weydaarta dhiifooni kama maarantay dhiirigelin yeesha dhar magaalo iyo xiisihii run uga dheeraada gumbaa dharaga lagu seexiyaa dhooni ka ahaada gubanimo dhib baa ka xigtay samay ka dhuubnaada tu garan maysid gumbaa dharaga lagu seexiyaa dhooni ka ahaada gubanimo dhib baa ka xigtay samay ka dhuubnaada halla waa dhambaal aanu diray dheega xabasheede cid ku soo dhaweysa iyo haddaad dhaanta filanayso intaad dhulkayga iska qaadato dee haddii aad is leedahay waa lagu dhaantayn doona sacabka lagu garaaci doona halla waa dhambaal aanu diray dheega xabasheeda cid ku soo dhaweysiyo haddaad dhaanta filanayso ummaddaga nuglaatiyo haddaad daraqna moodayso dhawaaqiina iyo sheegashadu nooma dhaadhicine dhasalaalaq iyo baanisuhu way iska dhalanteede waa isu soo baxayo bad baanu helay wax badan baa laga soo sheegay nimankaas aynu hadda hadalhay dhasalaalaq iyo baanisuhu way iska dhalanteede dhulka iyagu agoon maaha iyo dhaxalka yaalaay guutooyinkii loo dhisaa dhooban furimaaye dhalandhoolka iyo raacdaday gocasho dhuubteen dhirta iyo waxay u heshadaan dhaxanta jiilaale kumanaan is wada dhaarsado dhiiran baa maqane naabaalada dhacaya iyo dhamacda baaruuddu ahdigaynu meel dhiganay iyo dhimasha weeyaane dhiig iyo waxaynoo balana diliya dheecaana nimanka badda doonayana fariintaydu waa intaas dhalinyaradana intaas kale wata abwan waa gabay runtii aad u dhumuc weyn waxaad ku baaqday in hadalka ficil loo bedelo ayaad ku baaqday intaanan horay u sii socon gabayga horta adigu halkeebuu ka soo galay waatii la oran jiray haddaan gabayga uurkoo bukiyo arami kaa keenin
asaan og jacayl iyo kalgacal kugu ijbaaraynin afka unbaad ka leedahee tixuu arar ma yeeshaan. halkee kaa soo galay gabayga? cabdifataax walaal marar kalena waxaan u malaynayaa inaan sheegay horta gabaygu waa iska heyba uun weeye. hadduu ahaan lahaa wax ninkii cadhoodaaba oo gabi karo dad badan oo cadhaysan baa jooga waxba ka soo bixi la'yahay soo garan maysid. hadday maaragtay dhaxal iyo maaragtay dadkii kaa horreeyay waalidiinta ahaayoo gabi jiray ay tahayna waxaan isleeyahay reere gaarahoo gabyaa unbaa soomaalida ku jiri lahaayoo dee iyagu kala dhexdhexla oo mid aabihii gabi mid awgii gabiyo deedna sidaa maaragtay waxaan iyagu isleeyahay waa iska hibo waa qaybaha ilaahay dadka wuxuu qaybi qayb ka mida halkaa meel uma dhaafin karo.